وعن مركل صاحبيال magacaygu waa Ismaaciil halkan kala hadlayo waa barnaamijka Ismaaciil's program soo ma fiicnaan lahayn inaad kala barato programming languageska sababta ay ku imaadeen computerka iyo programming languageska sidee iskula shaqeeyaan iyo waxyaalahaas oo dhan muuqaalkan hadduu rab weyneedmo 2 daqiiqo ay soo socoto waxaad ku fahmi doontaa wax badan waan hubaa laakiin iyo global ina wax yar uun ku fahansiiyo dhamaadka muuqaalkana waan ogaan doontaa waxun baa ku soo kordhi doono programming languageska sababtay ku imaadeen marka koobaad intaan taas ku sheegin aan kugu horeeyay computerku waxa uu leeyahay luqad u gaar ah sida bilaadanka ay u leeyihiin luqado u gaar ah ayuu sidoo kale computerku leeyahay luqad u gaar ah computerka luqadda u gaarka ah magaceeda waxa loo yaqaanaa machine language luqadaasi waxa iyada dhan ay ka kooban tahay waa 0 and 1 macnaheedu ay tahay ever iyo hal waa luqad iyada oo dhan ay ka kooban tahay xisaab oo kaliya haddaad xisaab taqaano ma ahan inaad taqaano machine language laakiin iyada waa 0 iyo 1 way ka dhib badan tahay wayna ka adag tahay markii loo fiiriyo waxyaalaha kale waana luqad u gaar ah computerka haddaba si aad adigu wax u samayso tusaale kale waxaad rabtaa inaad samayso application software ama website waxay ahaataba si aad wax u samayso waxa u baahan tahay inaad computerka fahmi karto computerka inaad fahantana aad ay u adag tahay sababtoo ah waa machine language oo wada xisaab ah haddaba waa la fakiray waxa la yiri hala fududeeyo bilaadanku waxa ma fahmi karaan waxa la soo saaray luqado kale oo programming languages ah kuwaas oo fududeynaya inuu qofku la xiriiro computerka wala soo waday waqti badan ayay soo martay ilaa hadda programming languageska luqadaha la isticmaalo ee computerka lagu la xiriiro waxa ay marayaan in English to English inay noqdaan marka hore waxay ahaayeen English yara xogaa adag ama jacbur ah hadda English to English ay maraysaa luqada programming waxa jira English to English ah taas oo ku sahlan inaad computerka si toos u la xiriirto kuna samayso wax shaqeynaya oona markaad luqadahaas programming-ka isticmaalayso computerka ay la xiriirayso luqadahaas iyo computerka waxa u dhaxeeya interpreter wax loo yaqaan oo ah turjumaankaas wuxuu turjumi doonaa wixii aad soo gelisay ama amartay computerka wuxuu u turjumi doonaa machine language waana sababta ay u yimaadeen programming languages aad u fara badan hadda waad kala fahantay ayaan filayaa aan ku weydiiyay inta aad daawanayso muuqaalkan maxaad faa'iiday maxaad baratay computerka iyo programming languages